السلام الله عليكم أصحابتي. maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad u qosol badan oo aad la yaabi doontaan dhalinyarada TikTok iyo waliba dhalinyarada YouTube-ka oo huf iyo hal aan jirin laga dhigay loona daatay ayaan maanta idin daba geyn doonaa. haddii aad ugu cusub tahay subscribe-taada waa dhiirigelin, like-taadu waa codsi, comment-igana fikirkaaga waa ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii shalay commentiska kusoo qoray thank you Cabdi Askari aan ka dalbaday 100 qof kaliya aan dalbaday, laakiin dad intaa ka tira badan waa mataqaanaa soo gudbiyay. sidoo kale dhalinyaradii shalay aad ka mataqaanaa igu taageeray barnaamijka garab istaaga dhalinyarada Soomaaliyeed, iyagana waxaan leeyahay idinka guddoomay sharaf iyo karaama leedihiin. haddeer waxaan moodaa meel qof dhalinyaro talent haddii lagu arko qofka koobaad ee laga meeshan gareynay inaan ahay. taasina waxaa keentay dhalinyarada inay igu tuhumayaan nin aan xaqiraad iyo xaastinimo aqoon dhalinyarada mar walba soo bandhigin aan ahay. that's why markay mar walba qofkii talent leh iga meeshan gareynayaan. dhalinyaro fara badan oo iga meeshan gareeyay isagana barnaamijyaan ka soo diyaarin doona, ayagana waa idin keeni doona insha Allah. waa tahay maanta waxaan fiirinaynaa barnaamij dhankaasi TikTok ka socday oo aad igu qosliyay. barnaamijkan waxaa loo isticmaalayaa applicationkaas waxaa la yiraahdaa Reface. applicationka Reface la yiraahdo waa waji qof caan ah oo actor ama heesaa caan ah iyo anigaygaas arkaysaan baa wajigooda la isku dhex darayaa. marka qof 100% buu ekaanayaa, qof wax kale uu ekaanayaaba oo jinniya soo baxayo, qof 50% uu ekaanayaa. dhalinyaro fara badan oo TikTok iyo YouTube-ka ku taqaanaan baa lagu sameeyay iyo waliba qaar fanaaniina. dhalinyaradii lagu sameeyay barnaamijkaas waa maanta isla fiirin doonaa. qofka is leedahay alleelahay qofkaas waa la soo dhaweeyay ama qofkaas waa perfect waa la keenay, committee ama ciisan ugu wadaagaysaa. ka is leedahay qofkaan shaqo iyo shuqul toona kuma lehna, committee aan ugu wadaagaysaa. bal marka hore muuqaalada aan isla fiirsano. aniga xataa idin sheegi doonaa qofkii aniga la soo dhaweeyo ila macquulsan waa idin sheegi doonaa. waa tahay qofka koobaad aan ku bilaabayno waa fanaanka Qamar Suugaani. sida halka uga jeedaan odaygii Qamar Suugaani ahaa waa ka halka taagan oo gacanta soo taaganaya. ninkii Qamar Suugaani ahaa waxaa moodaa horta timaha shuqul kuma leh. Qamar Suugaani oo Suuriyaan ah horta ninkan hortaagan waa Qamar Suugaani oo Suuriyaan ah, timaha ku yaalo iyo nidaamka. laakiinse bil xaqiiqa abuurist ilaahay kulli waxba kama sheegi karno. laakiinse Qamar Suugaani hadduu qaabkaas ahaan lahaa another level buu ahaan lahaa. waxaa halkaas kaaga cad Qamar Suugaani originalkiisii asliyadiisii in uu cadaan iyo meelahaas iyo wax adqaan ay wax ka soo galaan awowgiisii 25aad iyo waxba cadaan ah macnahaas ugu soo baxay. Qamar Suugaani waa la helay. xariifkan Qamar Suugaani say tahay isku keeneen. Qamar Suugaani oo cadaan ama arki lahayd weligaa maya, hadda arag waa kana Qamar Suugaani lacala hadduu Ingiriis aan lahaa. waxaan fiirinaynaa bal qofka xiga. qoftan waa boqorada style-ka Kareena Kapoor. filimka ay tras oo Akshay Kumar xaaskiisa ay tahay oo ay ku jirto Priyanka Chopra oo lagu soo eedeynayo kufsiga beenta ah. filimkaas waay qoftan. marka waxaan dhihi karnaa boqorada style-ka indhahaas mooye sida kale shuqul ma kulahaan dhihi karnaa, iyo sanka, indhaha iyo sanka. laakiin sida Qamar Suugaani uu u ekaa xoogaha inuusan u ekaan baa moodaa. kulley boqorada style-ka boqolkiiba inta aad siin lahaydeen idinkaan kulley committee-ga noogu sheegayo. laakiin aniga waxaan dhihi karaa Qamar Suugaani ilaa hadda hogaaminaya qofka sida saxda ah loola helay waa yahay Ugbaad Aragsan oo cadaan ah weligaa ma aragti. waa tana Ugbaad Aragsan bayaan dhihi karaa Ugbaad Aragsan shaqo iyo shuqul kuma laha. Ugbaad Aragsan lacala haddii sawirkaas meesha laga jaro oo qoftaas soo qabo lagu dhaho Ugbaad Aragsan may baan dhihi karaa Ugbaad Aragsan lama helin. waa yahay Fartuun Balbalaarka in the house isdeji Shaydaarka Iskandar qof weyna timid legend haye. Fartuun Balbalaarka maxaa laakiinse qof xogaha tima dhaadheer in lagu qabtay ahaydno. timahan gaaban iyo timahan cadaanka la qasay laakiin waji ahaan perfect waa la keenay.
fartuun cadaan fartuun balbalaarka oo American ah macnaha black American ah waay marka wajahan waa la keenay laakiin fartuun waxa qasayay kaliya qoftan timaha gaaban ee timaha cad in laga daayay qof timo madow caadi aan lagu qabtay ahayd aan qaadan karnaa fartuun balbalaarka waayahay fartuun balbalaarka waa qaadanay iyadii qamar suugaani waa qaadanay waa waray qoftaana aad loo keenay wariyaa qoftaan ka warrama qoftaan zaa'id loo keenay qoftaan bal aabaheedii hooyadeedii waxay weydiisay bal qof cadaan oo mataan kala xumiyay leedahay macnaha si isugu egyihiin application-kii qoftaan sayidka u qabtay gabadha Habi Axmed la dhahaa waa tiktoker Habi Axmed qamar suugaan xataa kaanteeda kala baxday aniga dhankayga Habi Axmed lambar 1 ii ah waxa lambar 2 ii ah qof ninka la yiraahdo qamar suugaan fartuun balbalaarka saddex abaay guuxaye si camal bish arguuxaye si camal ya rasuulallah ya xabiiballah guuxaye ninkan computer ka fadhiyo shaqo isku malaha laas wallahi intaas ma kala fiiriyay macna indhaha intaas guuxaye ahaan waa loo soo qabanaya laakiin satimaha shaqo isku laha intaas kora madaxa shaqo isku malaha guuxaye waxaan dhigi karnaa 100% intaas ma kala fiiriyay guuxaye caadi way la sida kala shaqo isku malaha waayahay socdaal maqaayadaan ka dhex qadeena nin weyn ay yimid legend haye socdaal waa uu egyahay wallahi socdaal uu egyahay wallahi socdaal oo Latin American macnaha Mexican ah waliga socdaal oo Mexican waa kana wallahi socdaal waa 50-50 waay konton socdaal xagga indhaha iyo qaabka socdaal waa la keenaa dhigi karaa socdaal waa qaatay konton waay نجم النشاد يغفتن شغل اسكو مالها ماي نجم النشاد يغفتن شغل اسكو مالها ما قفتان قف كلام لو سوق بن كري سوق قفتان قف كلام لو سوق بن كري باد قف كلا hadii soo kiis loo isticmaal lahaa way kan lahayd ما عندها maybe معقول maya aniga nid manashaad waa diiday lambar 1 ani waxaan qaatay sida halka uga jeedaa ninka la yiraahdo qofta la yiraahdo Habi waa perfect waay 100% waay Habi lambar 1 waay aniga dhankayga laba waxa ay ninka la yiraahdo qamar suugaani qaabka timaha style-ka wajiga wuxuu dhan garka oo isku soo bixeen qamar suugaani oo Ingiriis waa haynaa Habi oo Faransiis ahna waa haynaa fartuun balbalaarka oo American ahna waa haynaa fartuun balbalaarka ayada timahaas bisa qalday laakiin si application-ka si fiican u soo qabtay inta wajahada si fiican u soo qabtay mar labaad lagu celiyaan dhilaafa waraani waxa si la imaanaya aniga hadii aan xariif waxa jiro oo ruushiyaan aniga hadaan ruushiyaan la iga soo dhigeen fadlan ilaahay lagu nabad geliyo face-ka laga ilaaliyo sidoo kale kaalinta afraad waxaan siin lahaa socdaal waa 50-50 waay laakiin se boqorada style-ka najm nashaad ugbaad aragsan iyo guuxaye afartaas waa diiday afartan kalena waa qaatay adiga markii aad barnaamijkan la fiirisay maadaama aan la joogtay bilow ilaa dhamaad dadka isleedahay wajigooda perfect waa la keenay yaa kaalinta koobaad kugu jiro yaa kaalinta labaad kugu jiro yaa kaalinta saddexaad kugu jiro comments-ka inoo balamaad comments-kan ku wada ogaanayna waa tahay barnaamijkii reface ee TikTok-ga dhalinyarada iyo YouTuberada laga sameeyay in la sii barayo jeclaan lahaa YouTuberada iyo dadka caan laga soo sameeyo iga meeshin galay TikTok waa ka soo sameeynaya barnaamijkii intaas amaad ku soo gabagabeynayna hadii aad nagu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigina fikirkaaga nagu waysaa intaan ku midno barnaamij kan lamid ah oo zikar ma gudaas maamulka Soomaaliya sheelno idin leh ciao